بسم الله magacayga waxa la dhahaa Badri Amiin Aadan waxaan ka mid ahay ciidanka ilaalinta duurjoogta ama Ethiopia Wildlife waxaan u xisaarnahay ama aan mas'uul ka ahay deegaanka Soomaalida ciidanka ah ayaa mas'uul ka ahay si aad wada taqaaniba maroodigan seeraha ku nool yahay waa seera aad u ballaaran seerahan waxay u dhaxaysaa seeran dhulkan seeruhu wuxuu u dhaxayaa laba deegaan Oromiya iyo Soomaali boqolkiiba 85 waa dhulka Soomaalida dhibaatooyinka jira hadii aan hal iyo laba waxaan ka taabto deegaameen cusub oo macnaha ay dhanka dawladaha macnaha dawladaha deegaanka walba deegaanka Oromiya ay faragelin ay ku sameeyaan investor ay siinayaan qabalooyin cusub ay ku sameeyaan oo laga arkayo hadda markaad saa u eegtid waxa soo dhawaa jingado iyo dhulkii la wada xaaray investor la siiyay investoradaasna waxa siiyay si sharci darro waliba ku bixiyay waa deegaanka Oromiya anigoo ku hadlaya magaca Ethiopia Wildlife deegaanka Soomaalida waxaan dhahayaa ama farayaa dhulkan inay iyagu ay leeyihiin markii la aasaasay 1962 taariikhda Ethiopia waqtigii Haile Selassie ayaa la aasaasay dhulkan wuxuu ahaa balciisu 1982 kilomitir square buu ahaa markaas boqolkiiba 95 waa deegaanka Soomaalida hadda laakiin 85 ayaa deegaanka Soomaalida u soo hadhay dhulkii inta ay iyagu leeyihiin way dhameysteen intii soo hadhay waa inta Soomaalida bis wax soo hadhay laakiin deegaanka Soomaalidu kama horay xafiiska ilaalinta deegaanka xafiiska dhaqanka iyo dalxiiska ee deegaanka Soomaalida waa inay xoog saaraan intan hadda sidii loo badbaadin lahaa inta kale waa la dhameystay maroodigan uu Ilaahay nagu maneystay waa khayraad qaali oo deegaamada kale ayna lahayn dalku una lahayn Afrika ba male waa ka duwan yahay African Lontodox bala maroodigan meel kale laga helo waxa laga helaa halkan hadii uu dabar go'o waa khasaare inagu tahay marka waa inay deegaanku xoog saaraan ay la shaqeeyaan investorradan ay joojiyaan dhulkan ay gacanta ku soo celiyaan waa meelaha dalxiiska loogu talagalay meel kale oo meel aan dalxiis noqonin ba dalxiis laga sameeyaa hadda laga dhisayaa meesha laakiin dalxiis ku haboon waa halkan gobolka Faafan gaar ahaan degmada Baabili santarka Koora hoosteeda hadda markaas soo gaadhid hadda meeshan taaganahay qabala hoosaadkan deelama la dhahaa marka cidii halkan timaadon ba wax ka warbixin karta dalxiisku maroodiga waa loogu magac daray waxa macnaha seeraha maroodiga Baabili baa leeyahay oo loogu magac daray laakiin waxa ku nool xayawaan fara badan oo macnaha naasley oo badan marka la isku daro waa 570 iyo waxba macnaha ayaa lagu qiyaasay markii daraasadka la sameeyay nooc walba xayawaan meesha waa laga helaa maroodigu maadaama uu khaas u yahay baa loogu magac daray waxa laga helaa shabeel libaax goodirka waxaan laga helay ma jiro nooc shimbiraha adug badan wax walba waa laga helaa dalxiiskan way ku haboon tahay laba erar waa isku yimid erweyn baa isku yimid meel vi ajibta xagan oo sadii aad u socoto marka waa meel dalxiis ku haboon waa inay xafiiska dhaqanka dalxiiska xafiiska ilaalinta deegaanku ay xoog saaraan oo tallaabo sharci ay ka qaadaan ay investorradan ay ka saaraan oo seeraha gacanta ku soo celiyaan